subax wanaagsan dhageystayaal waa khamiis 22 bisha Agoosto sanadka 2024 saacada Afrikada Barina haatan waxa ay tilmaamaysaa 7 aroornimo qodobada aad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan waxa kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliya oo soo saaray qaraar ku saabsan canshuuraha iyo dakhliga dalka Shiinaha iyo dalalka Afrika oo ka wada hadlay sidii wada shaqayn iyo iskaashi ay uga yeelan lahaayeen dhanka warbaahinta waxaa diiradda lagu saarayay kulankan sidii loo midin lahaa ama wax loo qaban lahaa horumarinta saxaafadda markay timaado Afrika iyo China gaar ahaan dhanka digitalka oo saxaafadda casriga la horumariyo iyo in saxaafaddu ahmiyadda gaarka siiso oo xoog ay saarto waxyaabaha horumarka keeni kara iyo horumarada ka jira qaaradda Afrika xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Lubnaan oo muuqata mid sii xoogaysanaysa ciidamada Ukraine oo ku guda jira howlgalkoodii ugu dheeraatan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ciyaaraha qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo oo uu soo saaray Xasan Sheekh Cumar anigoo Foos Ciidahna aan idin la socodsiin doono hase yeeshee aynu ku horeyno wararka caalamka oo uu diyaar yahay isla Xasan Sheekh Cumar mahadsanid Foos sargaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Fatah ee Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Tawfiiq Tirwaay ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay dishay mid ka mid ah xubnaha kooxdooda si ay u horiso dagaalka gobolka militariga Israa'iil ayaa sheegay inay dileen Khaliil al-Maqda kadib markii weerar ay ku qaadeen baabuur maraya koonfurta Lubnaan ciidanka Ukraine ayaa sheegay inay isticmaaleen gantaal uu Mareykanku sameeyay intii ay ku guda jireen duulaanka Ruushka tani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay Kiev ay si rasmi ah u xaqiijiso in qalab ka yimid galbeedka la soo dhoobay xuduudda isla markaana ay isticmaaleen Donald Trump ayaa qaban doona soo bixi ugu horeeyay oo uu ku qabto goob fagaara ah taniya markii uu ka badbaaday isku day dil bishii hore madaxweynihii hore Mareykanka ayaa ka dambeyn doona muraayadaha xabadda celiya xaflad ka dhacaysa ama munaasabad ka dhacaysa North Carolina ugu dambeyntiina in ka badan 100 shaqaale oo ka tirsan shirkadda shidaalka ee dawladda Venezuela ayaa lagu qasbay in ay iscasilaan kadib markii ay ku guuldareysteen inay taageeraan guushii lagu murmay ee madaxweyne Nicolas Maduro Foos aad buu mahadsan yahay Xasan Sheekh Cumar ayuu ahaa wararkii caalamka inoo marinayay haatan dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka markale subax wanaagsan aan ku bilaabay golaha wasiirada ee Soomaaliya oo soo saaray qaraar ku saabsan canshuuraha iyo dakhliga dalka ayaa kulan ku yeeshay xalayto magaalada Muqdisho kulanka waxa hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre hadaba kulankaasi qaraarka ka soo baxay iyo waliba waxyaabihii looga hadlayba waxa isha mariyay Xasan Sheekh Cumar oo wali stuudiyaha igula sugan Xasan Foosay sida aad sheegtay golaha wasiiradu qaraarkaasi ayay soo saareen ay kaga hadlayeen markaasi canshuuraha iyo dakhliga dalka Soomaaliya qodobadu waa ay ka badan yihiin ilaa 10 laakiin waxaynu isku dayi doonaa bal muhiimadda inaynu ka eegno iyo qodobadaasi waxa ugu muhiimsan qodobadan waxa lagu yiri dhammaan dakhliga dawladda federaalka Soomaaliya waa in lagu shubaa laguna maamulaa qasnada midaysan ama qasnad midaysan oo kaliya si waafaqsan dastuurka sharciga maareynta maaliyadda dawladda dakhliga dawladda federaalka waxa ku jira dhammaan lacagaha ay qabtaan hay'adaha dawladda iyo sidoo kale dhammaan lacagaha lagu soo aruuriyo magaca hay'ad dawladeed ama midka dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin markaasi kuwa aan xadidnayn dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan marka Foosay wasaaradda maaliyadda ayaa la sheegay inay tahay hay'adda kaliya ee u xilsaaran ururinta maareynta iyo la socodka dhammaan noocyada kala duwan ee dakhliga dawladda federaalka Soomaaliya dawladda dhammaan hay'adaha kale ee dawladda ha ahaadaan rayid ama ciidan waxa ka mamnuuca baa la yiri in ay si iskooda u aruuriyaan ama u maareeyaan dakhliga dawladda oo ay ka mid yihiin ama aan ku ekeen dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan marka aynu sii faahfaahino wasiirka maaliyadda oo kaliya ayaa awood la siiyay xagga dejinta iyo wax ka bedelka dhammaan
tacriifadaha saldhigga u noqonaya noocyada kala duwan ee dakhliga dowladda oo ay markaasi ka mid yihiin waxyaabaha aynu soo sheegnay ee khidmadaha iyo ganaaxyada ee kala duwan. qodobadu aad bay u badan yihiin, waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa foosey sida aynu la soconno iyadoo dhowaan canshuurta dowladdu ay soo rogtay ee xagga iibka ay ganacsatadu arrintaa ka biyadiideen. canshuurtaasi la qaadayo oo ay sheegeen in arrintaasi aan ahayn mid saxa, inkastoo dowladda iyo ganacsataduba ay ka wada hadleen. si loo hubiya baa la yidhi hogaansanaanta qodobada sharciga islamarkaana looga hortago khataraha maaliyadeed ee ka dhalan kara, waa in dhammaan heshiisyada saameynta maaliyadeed leh ee dhaqangalka ah ee sharciga baalmarsan la waafajiyaa sharciga iibka ee qaranka ee 2016 iyo sharciga maaraynta maaliyadda guud ee 2019. dhammaan heshiisyada caalamiga ee saameynta maaliyadeed leh ee dowladda federaalk Soomaaliya kula jirto shirkadaha shisheeye waa in dib u eegis lagu sameeyaa, sidoo kale lana waafajiyaa baa layidhi sharciga marka waqtigooda uu dhammaado ka hor inta aan la cusboonaysiin. wasaaradda maaliyadda waxaa la faray foos in ay hortibin siiso si joogto ahna ay u bixiso qarashaadka ka dhasha heshiisyada dowladdu ay kula jirto shirkadaha gaarka loo leeyahay si looga fogaado ganaaxyada sharci ee ka iman kara. heshiiska lagu fulinayo adeegyada la socodka konteenarada waxaa horey macnaha loola galay heshiiskaasi lagu fulinayo adeega dhaqista konteenarada iyo waxyaabaha la midka oo horey loo galay. isna dabcan waxaa maamulaya ama laga warqabaya arrintaasi sidii hore si aan ahayn ayaa loola soconaya. marka dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada shirkadaha ayaa sidoo kale waxaa la faray in arrimahan ay kaalintooda iyo doorkooda ka qaataan. wasaaradaha haddii aynu eegno waxaa loogu yeeray dhowr wasaaradood, waa wasaaradda ganacsiga, wasaaradda gaadiidka, dhammaantood waxaa lagu faray warbixintaas oo dheer in mid walba kaalinta iyo doorka uu ku leeyahay arrintan uu ka qaato, islamarkaana la joojiyo waxyaabo badan oo sidii hore dadka lacagta looga qaadi jiray, ganacsatada markay soo dejiyaan alaabaha muhiimka ah la daahin jiray, lacagaha dheeraadka laga qaadi jiray ayaa la dhimay. waxaa ka mid ah haddii aynu soo qaadano waxaa la yidhi khidmadda kaarka ogolaanshaha gelista dekedda, waxaana laga dhigay $40 oo keliya, iyadoo meesha laga saaray qaadista lacag dhan $110. waxaa meesha laga saaray khasaaraha qarash kasta oo ku bixi jiray howlaha loogu yeero konteenar jebinta. cid kasta oo ku lug yeelata baa layidhi qaadista khidmadan la mamnuucay waxaa laga qaadi doonaa tallaabooyin sharciga waafaqsan. wasaaradda ganacsiga waxaa la farayaa iyadana oo warbixinta lagu sheegay ukurgulidda iyo wadatashiyo inay ka samayso cabashooyinka iyo khilaafaadka u dhexeeya ganacsatada, islamarkaana soo jeedin ay keento golaha wasiirada. waxaa la faray wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada inay keento sidoo kale qorshe lagu xalinayo cabashooyinka ka jira gaadiidka xamuulka qaada ka qaada dekedda muqdisho, islamarkaana ay soo jeedin keento iyadana golaha wasiirada. marka haddii aynu si guud u soo koobno qodobadaasi ayaa ugu waaweynaa, laakiin waa qodobo gaaraya ilaa iyo 11 oo aad loo faahfaahiyey oo dastuurka markaasi lagu laray qodobadaas iyo waxa uu ka qabo, iyadoo dabcan wasiiraduna arrintaa ay xaalay saq dhexe soo saareen. xasan sheekh cumar aad ayuu u mahadsan yahay inala socodsiinaya qodobka la xiriira golaha wasiirada ee Soomaaliya oo soo saaray qaraar ku saabsan canshuuraha iyo dakhliga. isla qodobkaasi dhageystayaal ayaa dhinaca iyo Facebook aragtiyadooda uga soo dhiibtay. dhageystahana waxa uu leeyahay magaciigu waa Cawil Saciid Maxamed oo jooga Bacadweyn gobolka Mudug. golaha wasiirada ee Soomaaliya ee soo saaray qaraarka ku saabsan canshuuraha iyo dakhliga dalka run ahaantii waxay u muuqataa mid aan waxba soo kordhinin, ayuu yiri, waayo waxa aad moodaa in shacabku ay dowladda qudheeduba culays ay isla dhageysta kale oo la yiraahdo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas oo jooga gobolka xeebta ee Mombasa dalkani Kenya waxa uu leeyahay golaha wasiirada ee Soomaaliya ee soo saaray qaraarka ku saabsan canshuurta iyo dakhliga aad baan u bogaadinayaa waana soo dhaweynaya. aad ayay u mahadsan yihiin dhammaantood. markana hay-adaha warbaahinta Shiinaha iyo kuwa Afrika ayaa sameynaya dadaal wadajir ah si loo fududeeyo dardargelinta casriyeynta warbaahinta ee dalalka soo koraya, sida ay sheegeen ka qaybgalayaasha madasha lixaad ee iskaashiga warbaahinta Shiinaha iyo Afrika
oo lagu qabtay magaalada Beijing. Waxaa la muujiyay in xiriirka Shiinaha iyo Afrika uu galay marxalad cusub oo ah dhismaha bulshada, iyadoo loo marayo warbaahinta isla markaana ay muhiim tahay iskaashiga horumarinta dhinacyada adeegyada isgaarsiinta gaar ahaan dijitaalka. wasiirka warfaafinta Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo madaxda warbaahineed oo ka kala socda dalal kala duwan ayaa shirkan ka qayb galay. wariye Maxamed Maxamuud Dhoore ayaa ka mid ahaa isaguna dadka ka qayb galay, waxa uuna uga warramay waxyaabaha shirkaasi looga hadlay. Maxamed Baashi Khaliif kulankan wuxuu ahaa shirkii lixaad ee sanadlaha ahaa ee Africa and China Media Cooperation. waxaa diiradda lagu saarayay kulankan sidii loo mideyn lahaa ama wax looga qaban lahaa horumarinta saxaafadda markay timaado Africa iyo China, gaar ahaan dhanka dijitaalka oo saxaafadda casriga la horumariyo, iyo in saxaafaddu ahamiyadda gaarka siiso oo xoogga ay saarto waxyaabaha horumarka keeni kara iyo horumarada ka jira qaaradda Afrika, gaar ahaan mashaariicda uu Jaynuhu maalgeliyo, iskaashiga, isbedelada cimilada, waxyaabaha waaweyn ee qaaradda ka jira. badanaa saxaafadda kale sida lagu sheegay ee sida dadban u sheegto ama sida wanaagsan u sheegto in saxaafadda Afrika iyo China iska kaashadaan, in si togan ay u sheegaan isla markaana ay dadka bulshada ku wargeliyaan waxyaabaha horumarka ee ka jira qaaradda iyo mashaariicda horumarineed, isla markaana nabadda ay ku taageeraan. maxamedow, wariyaasha ka qayb galay ayaa ka mid ahayd shirkaas. madaxda Afrika ee dhinaca warbaahinta yaa ka qayb galay? madax badan ayaa ka socotay warbaahinta, wasiirro fara badan ayaa ka qayb galay oo ay ku jiraan wasiirada warfaafinta wadamada Zambia, Congo, Central Africa, Burundi, Rwanda, madax ka socota Tanzania, Mali, Tunisia, Egypt iyo dalka Soomaaliya. wafdigiisa oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda warfaafinta Daawud Aweys oo khudbadiisii isagu lahaa maalinka Arbacada, khudbadii dheereyd oo ka jiray halkaas. dhammaan madaxda Afrika halkaas ka hadashay waxa ay soo hadal qaadeen muhiimadda ay leedahay iskaashiga dhanka saxaafadda China iyo Afrika, iyo gaar ahaan in saxaafadda loo jiheeyo in ay sheegto wararka togan ee markaana wax dhisi kara ee qaaradda Afrika, wax u tari kara dadka, iyo sidoo kale ka shaqeyn kara danta qaranka wax la yidhaahdo ayay aada uga hadleen. waxa sida gaarka warbaahinta Shiinaha iyo tan Afrika ay isaga kaashan karayaan oo shirka lagu sheegay oo waqti dhow iyo waqti dheerba la mudeeyey, maxaa ka mid ahaa? waxaa ka mid ah Shiinuhu waxa ay sheegeen in tababaro ay siiyaan saxaafadda Afrika haddii aan lahayd midda dowladaha iyo midda gaarka loo leeyahay. waxay sheegeen ilaa 90 wariye in la tababaray, qaarkood hadda halkan tababaray u joogaan. in Shiinuhu ka shaqeynayo inay tababaraan saxaafadda Afrika, inay qalabeeyaan, inay horumariyaan si saxaafadda Afrika ay u noqoto saxaafad weyn oo nuxur leh oo isku filan, isla markaana ka maaranta in gacan shay ama waxyaabo kale ay soo galaan, isla markaana loo adeegsado si guracan oo looga faa'iideysto dhaqaale darrada ama tabar la'aanta ama aqoon darrada looga faa'iideysto. madaxda meesha ka hadashay waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya, madaxda Afrikaanka ee dhinaca warfaafinta madaxda ka ee dalalkooda ka socday. wasiir Daawud Aweys muxuu isagu sheegay in xaalka warbaahinta Soomaaliya uu ka sheegay iyo iskaashiga warbaahinta Shiinaha iyo tan Soomaaliya. khudbadiisa way dheereed, dhinacyo badan ay taabanaysay. waxa uu ku bilaabay in saxaafadda Soomaaliya oo dhibaato badan iyo marxalad adag ku shaqeynaysa ay samaysay dulqaad iyo adkaysi iyo dabar adeeg, isla markaana ay horumar gaartay, isagoo sheegay in saxaafadda Soomaaliya wajahday culaysyo fara badan ay ugu horeyso argagixisada. sida ay tahana saxaafadda Soomaaliya ay kaalin weyn ka qaadatay horumarinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed, in dadka loo sheego xog sugan oo dhiirigelina. waxa uuna ku ammaanay warbaahinta Soomaaliya door weyn inay ka qaateen in bulshada wacyigeliyaan markay timaado abaaraha, markay timaado cudurrada, iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab, inay dowladda Soomaaliya ay kula jirto in saxaafadduna kaalin weyn ay ka qaadatay oo xog dadka oo rasmiga dadka u sheegtay iyo wacyigelinta laga sii daayay saxaafadda Soomaaliya. arrintaas ayuu aad ugu ammaanay saxaafadda Soomaalida. maxamedow, wariyaa tahay muddo dheerna saxaafadda Soomaalida iyo tan Afrikaba waad la socotay. saxaafadda Shiinaha iyo warbaahinta Shiinaha waxaa loo tiriyaa in iyaga qudhooda aysan ahayn kuwa madax bannaaninta ugu badan, wararkooda iyo warbixinadoodana waa la duraa. warbaahinta Shiinaha oo loo tiriyo inay ku hoos shaqeeyaan ama ka hoos shaqeeyaan dowlad shuuciya oo aan xirxiran oo aan furfurnayn, sidee bay tan Afrika wax ugu biirin karaysaa bay kula tahay? madaxda meesha ka hadashay Afrika waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta ee dalka Congo. waxa uu sheegay in Afrika iyo Shiinahaba warar badan oo qaldan ay ka sheegaan saxaafadda reer galbeedka, isla markaana ay wax loo liqaamay ama loo hingaadiyey ay sheegaan oo aan ka turjumayn xaqiiqada rasmiga ee ka jirta Afrika iyo sidoo kale xaqiiqada rasmiga ee xiriirka Shiinaha iyo Afrika. marka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga fikiro in saxaafadda Afrika ay hesho tababar iyo aqoon ku filan, ay ka madax bannaanaato wadamada uu tilmaamay reer galbeedka ka mid yihiin, isla markaana loo baahan yahay in iskaashiga Shiinaha la xoojiyo, isagoo sheegay Shiinaha saxaafaddiisa inay ka shaqeyso danaha guud ee horumarinta qaaradda Afrika iyo China.
Israa'iil iyo Lubnaan ayaa u muuqatay inay cirka isku sii shareerayso kadib markii Israa'iil ay sheegtay in Xisbullah ay tiro badan oo gantaalo ah ku garaacday koonfurta Israa'iil. dhanka kale Israa'iil ayaa la sheegay in ay dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Fatah ee Falastiiniyiinta. warbixintaasi waxaa inoo haya Xasan Sheekh Cumar. militariga Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullah ay in ka badan 100 gantaal ka soo tuureen Lubnaan kuna ganeen waqooyiga Israa'iil iyadoo rajada laga qabay heshiiska nabadeed ee Gaza ay sii yaraanayso. lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay gantaalada halka lagu garaacay, waxaase ay sababeen in dhowr jeer uu dab ka kaco goobo bannaan ah. Gazana ciidamada cirka Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahoodu ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin taliska maamulka Xamaas oo ku taalla magaalada Gaza. dhowr qof oo rayid ah oo barakacyaal ah oo halkaasi gabaad ka dhiganayay ayaa lagu soo warramayaa in la dilay. sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Fatah ee Falastiiniyiinta ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay isku dayayso inay horiso colaad gobolka ah kadib markii ay ku dishay sarkaal ka tirsan Fatah weerar ay ka geysatay koonfurta Lubnaan. Israa'iil waxa ay ku andacoonaysaa in ninkaasi oo lagu magacaabayay Khaliil al-Makhdah oo la shaqaynayay ilaalada kacaanka Iiraan isla markaana uu hub si qarsoodi ah u gelin jiray daanta galbeed ee la haysto. isagoo ka hadlaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu booqasho uu ku tegay saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka oo ay ku leeyihiin waqooyiga Israa'iil, waxa uu sheegay Netanyahu in ay diyaar u yihiin weerar kasta. halkan aan joogo waa saldhigga ciidamada cirka si aan si dhow ula socdo diyaargarowga ka hortagga khataraha dhow iyo kuwa fog labadaba. waxaan u diyaargarownay xaalad kasta, difaac iyo weerarba. ciidanka cirku waa gacan bir ah oo yaqaana sida loo garaaco caloosha jilicsan. cadowgeenna haddii ay noqoto waxaan caddayn doonnaa mar kale iyo xitaa si ka sii xoog badan. weerarka lagu dilay sarkaalka ka tirsan dhaqdhaqaaqa Fatah oo ka dhacay duleedka magaalada Sidon ee Lubnaan ayaa ahaa weerarkii ugu horreeyay ee lagu qaado xubin ka tirsan ururka Fatah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. warbaahinta Lubnaan ayaa sheegtay in 2 qof oo kale lagu dilay weerarka. mid ka mid ah waxa uu ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. Xisbullah ayaa sheegtay in 4 ka mid ah xubnaheeda lagu dilay duqaymo kale oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Lubnaan. sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda dimuqraadiga ee xoreynta Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Fu'aad Uthman kana qayb galay aaska Khaliil al-Makhdah ayaa waxa uu sheegay in dilalka loo geysanayo saraakiisha sarsare aanay joojinaynin rabitaanka dadka Falastiiniyiinta. dembigii dilka ahaa ee shahiid iyo hogaamiye Khaliil Makhdah Abu Xuseen ee Saaka iyo kuwii ka horreeyey ee fulaynimada ahaa waxay muujinayaan dabeecadda Israa'iiliyiinta ee ah inay sii wadaan dilalka fulaynimada ah. waxay u malaynayaan in sida fulaynimada ah ee loo dilayo madaxda ku sugan dalka iyo dibaddaba ay yaraynayso baaxadda iska caabinta iyo rabitaanka shacabka Falastiin. aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Sheekh Cumar oo warbixintaasi inala socodsiinaya. markana askarta Ukraine ayaa muddo 2 toddobaad ah ku jira duulaankooda gobolka Korsaag ee Ruushka, waana kii ugu waqtiga dheeraatan iyo markii Moscow ay bilowday weerarkeeda ka dhanka ah Ukraine in ka badan 2 sano ka hor. dhaqdhaqaaqa military ayaa kor u qaaday niyadda dadka reer Ukraine, laakiin sidee looga arkaa dhinaca Ruushka? tafatiraha BBC-da qaybteeda afka Ruushka Steve Rosenberg ayaa dadka kula hadlay magaalada Alexen. waa kan Aadan Maxamed Cabdi Saalameyn oo soo jeedinaya. halkan waa Alexin oo ah magaalo 700 oo sano jirtay oo qiyaastii 100 mayl u jirta Moscow. waxaynu halkan u nimid inaanu ogaano waxa ay dadku ka qabaan xaaladda naxdinta leh ee ka socota gobolka Kursk ee duulaanka Ukraine. iyadoo askarta Ukraine ay hadda ku sugan yihiin Ruushka, Lyubov waxa ay noo sheegtay inay walwalsan tahay. xitaa ma daawado wararka TV-ga sababtoo waxaan bilaabay oohin, ayay tiri. sidee tani suurtagal u tahay? cid miyaa ogolaan karta in ay tani dhacdo, ayay tiri. dadka halkan jooga waxa ay ku kalsoon yihiin askarteenna in ay soo afjarayaan howlgalka iyo inay guulaysanayaan. Andrey ayaa sidaasi qaba. Regina suuqa ayay ku iibisa qudaarta ka soo go'da beerteeda. waxa ugu muhiimsan waa in dagaalku uusan halkan iman oo aanu halkan soo gaarin.
askarteenna gaar ahaan taliyayaasha waa in ay aad u foojignaadaan. Rajiina ayaa sidaas tiri. maskaxda ku hay kani waa qaran si joogto ah loogu xasuusto kuwa halkan jooga. cabsida dagaalkii labaad ee adduunka, argagaxa duulaanka. dagaalkii labaad ee adduunka ayaa aad ugu badnaa qayb ka mida maskaxda qaranka halkan, iyo hadda markii ugu horraysay muddo ka badan 80 sano waxaa jira dagaalyahano ajnabi ah oo ku sugan ciidda Ruushka kuwaasoo qabsaday dhulka Ruushka. Vladimir waa uu warwalsan yahay, laakiin waxa uu qabaa in Ruushku uu guulaysan doono. waa maxay guusha dagaalkan ayaan isaga weydiinay. guushu waa marka ay nabad helaan, ayuu yidhi. fagaaraha magaalada waxaa ka jira bandhig faneed waddani ah, laakiin jawiga ayaa si aada u deggan. dadku waxay u muuqdaan kuwa ka warwalsan oo aad uga walaacsan xaaladda gobolka Kaas ee weerarka Ukraine. shaki kuma jiro in dadku ay rabaan nabad, laakiin halkan arrinka weli waxa aad mooddaa inay ku kalsoon yihiin ninka ugu sarreeya, ninka dalkan maamula, madaxweyne Putin, si uu nabadda u sugo. isla hogaamiyahaas oo 2 sano iyo bar ka hor bilaabay duulaankii baaxadda lahaa ee Ukraine. aad ayuu u mahadsan yahay aadan saalimeen. Siciid Fadhaayo oo ka mid ah wariyaasha muuqaalada duuba ee Soomaaliya ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin uu ku mutaystay muuqaalada iyo sawirrada dhanka wanaagsan ee Soomaaliya uu ka gudbiyo. waxyaabaha sida gaarka ah lagu siiyey abaalmarinta waxaa ka mid ah sheeko gaaban oo uu ka sameeyey dalka, taasi oo ugu magac daray Soomaaliyada cusub. Siciid ayaa Cabdishukur Haybo uga warramay abaalmarinta uu helay iyo si guud xaaladaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha muuqaalada sameeya ee ku sugan Soomaaliya. abaalmarinta la siiyey waa abaalmarin caalami ah oo la dhaho Telly Awards oo ay bixiyaan qolyo abaalmarin siiya dadka dokumentariyada sameeya iyo commercialska iyo waxyaabaha aan big budgetka ahayn oo dee awoodyada waaweyn sida Oscar iyo BAFTA aanan gelin. marka awardka aniga la siiyey wuxuu yahay award documentary aan ku qaatay oo short form ama dokumentariyada gaagaaban oo wixii 40 daqiiqo ka yar ah award la siiyey weeyaan. aniga ahaana wuxuu iiga dhigan yahay dee wax aad iyo aad u fiican waa awardkii ugu horreeya caalamiga aan helo, weliba aan ku helo documentary aan ka sameeyey hawl ayaan badanaa ku jiray oo qusaysa dalkayga Soomaaliya. Siciidow, dadka film sameeyaasha ee Soomaaliya ka shaqeeya caqabado intee in leeg bay sida maalinlaha ula kulmaan? Soomaaliya dadka ka shaqeeya weliba ha noqoto qolyaha qalabka sita oo micnaha aan journalistayaasha ahayn, inta badan waxaa laga yaabaa qolyaha qoraalada iyo idaacadaha ka shaqeeya oo qalab aanan wadanin in dhibaatadooda iska yar tahay, laakiin nin kaamarad weyn wata oo laamiga dhexdiisa taagan oo dee qof walbaba attentionkiisa soo jeedanaya caqabadaha soo wajaha caqabada yar ma ahan. dalkeena Soomaaliyana waa og tahay problemyo badan ayuu soo maray. warbaahintana kolleyba waxaa laga aaminsanaa wax aad iyo aad micnaha dadka dhan inaysan ku baraarugsaneyn in wax fiican ay gudbin karto. marka caqabadaha way iska badan yihiin, ha noqoto in dee dilo loo geysto dadka dhalinyarada wax soo saarka leh oo Soomaaliya ka shaqeeya. keliya maahan dee kooxo gaar ah inay waxyaabahaas geystaan, dee qof walbaba qof laamiga camera la taagan wax walba ayaa soo gaari kara. dhiirigelintii ay mudnaayeen ma helaan dadka Soomaalida ah ee shaqooyinka dhibka badan maaragtay ka qabta Soomaaliya, adduunkana tusaya muuqaalka wanaagsan ee Soomaaliya? dhiirigelintii ay mudnaayeen dadka barnaamijyada sameeya ama Soomaaliya wax badan usoo jiida oo positive ah kolleyba ma helaan. hadday noqoto dhanka dowladda Soomaaliya iyo hadday noqoto shacabka Soomaaliyeed. tusaale ahaan Cabdishukur, adiga waa ka shaqayn jirtay Soomaaliya oo wax badan hadda waa ka shaqaysaa oo in muuqaalo positive ah oo Soomaaliya wax tar u leh soo gudbin jirtay. dad badan oo waxaa jira sideedoo kale hadde in badan oo muddo dheer ka shaqaynaya Soomaaliya oo weliba wax recognition helin, wax abaalmarin aan helin dhanka markii la dhaho Soomaalida gudaheeda. sababtaasna waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo ku baraarugsaneyn kaliya waxay u haystaan nabadeynta iyo isku soo dhaweynta iyo Soomaaliya suuqgeynteeda inay tahay dhanka siyaasadda keliya ah, laakiin waxay ilowsan yihiin in caalamka la isku dhaafay dhinaca positive storieska, waxa wanaagsan in la gudbiyo, wax quruxda badan dalka in laga gudbiyo, taasoo kaalin weynna ku leh dhinaca suuqgeynta iyo nabadeynta Soomaaliya. maxaa kugu dhiirigeliya shaqada aad sida maalinlaha Soomaaliya uga qabato oo maaragtay shakhsiyan aad isdhihi karto waa waxa kugu shidaalinaya inaad hawshan sii wado? aniga gaar ahaan
dalka markaan kusoo noqonayay horta waxaan kusoo koray meel xero qaxooti oo dhadhaab la dhaho halkaas in badan aan deganaa waxaa jirtay qole warbaahinooda caalamka oo noo imaan jirtay oo wax naga duubi jirtay wixiina meel ay mariyaan aan la garan jirin inta waxoo naga duubtana la arkana waxay ahaayeen dee in negative oo ilmaha busku loo qaybinayo waxaas markaa fiiris dhanka Soomaaliyana waa taqaanaa oo waxaa noo imaada warbaahin caalami ah oo martino ah waxa kaliya raadinayaan waxay tahay waa assignment yar oo ayaga loo soo diray assignment-yaas ay daba galaan kulli waqti badan ma hayaan kaliya waxyaabaha ay sameeyaan waxay tahay dee halkaana qarx ka dhacay iyo halkaana darbi ka soo dumay aad ayuu mahadsan yahay Saciid Fadhaaye ayuu ahaa oo Cabdishukri hayba u waramayay markana wararkii ciyaaraha iyo Ciise Talyaani barnaamijka tibinta tooska sabtidan waxaanu ku soo gudbinaynaa kulanka xiisaha leh u dhaxeeya kooxaha Aston Villa iyo Arsenal oo ka dhici doona garoonka kooxda Villa Aston Villa sanad ciyaareedkii hore Arsenal iyo horyaalka dhaafisay 6 dhibicna ay ka qaadatay barnaamijka waxa uu bilaaban doonaa sabtida 7 fiidnimo xilliga bariga Afrika haddana barnaamijku waxaanu ku soo gudbinaynaa kulanka u dhaxeeya kooxaha Liverpool iyo Brentford ciyaartana iyo barnaamijkaba waxay bilaaban doonaan 6 maqribnimo maalinta Axadda waa tabinta tooska BBC inta badan horyaalada waaweyn ee Yurub waxa la ciyaaray toddobaadka koowaad ee furitaanka u ah xilli ciyaareedka cusub 2024-25 waxna wali furan suuqa kala iibsiga oo waxa ay kooxuhu ay soo qaadanayaan boosaska ay u arkaan inay gufeyn ay uga baahan yihiin kooxda Barcelona kulankeeda koowaad ee xilli ciyaareedkan waxa ay ka adkaatay Valencia oo ay marti u ahayd waxna ciyaartaas ka maqnaan Dani Olmo saxiixa 60 milyan ugu fadhiya ee dhawaanta ay ka soo qaateen kooxda RB Leipzig sababta maqnaashiyihiisuna waa in Barcelona aysan khadka cagaaran ka haysan xiriirka Spain oo dhaqaalaha ayaa lagu haystaa waxna ay ku fashilmeen in ay diiwaan galiyaan Dani Olmo si ay u diiwaan galiyaanna waxa ay ku khasbanaadeen inay kooxda ay ka diraan Ilkay Gundogan oo iminka dhameystiray saxiixa heshiis ee uu dib ugu laabanayo kooxdiisii hore Manchester City kadib gacanaatinta uga timid tababaraha kooxdaas Pep Guardiola Chelsea iyana waxa ay la soo noqotay waa heshiis waqti dheer ay la saxeexatay Joao Felix oo ay Atletico Madrid uga bedelatay Gunnar Gallagher oo Madrid muddo u joogay inuu ku biro kooxda uu layliyo Simeone waxaana Chelsea ay lambarkii 7 ee uu sideen jiray Sterling ay ku wareejisay Pedro Neto oo isna ay dhawaan soo qaadatay taasoo muujinaysa in Sterling uu suuqa kala iibsiga uu yaalo walina aanu ka go'aan gaarin jihada uu qaabilayo Lukaku ayaa isna ku biiray kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga halka Nottingham Forest ay la soo saxiixatay garab difaacii hore ee kooxda Aston Villa Alex Moreno Arsenal waxa ay suuqa dhigtay in Kataya walina ma uusan u soo dhammaan wada hadalka ay kula jirto Real Sociedad si ay uga soo qaadato Michael Merino Manchester United tabtaas oo kale ayuu ugu dheeraaday soo qaadashada u gartay oo ay ciyaaryahan dhexda ka ciyaara oo waayahanba u ahaa Manchester United dooqa koowaad iminkana ka ciyaara kooxda Paris Saint-Germain walaaya Ramsdale waxa uu heshiis ula dhameystay kooxda Garcia ee Isbaanishka ka dhisan si uu ugu biiro kadib kolkii uu noqon waayay doorashada koowaad ee tababaraha Arsenal Arteta oo uu arka David Raya golhayaha koowaad ee kooxda Manuel Neuer Thomas Muller iyo Gundogan dhammaan waxa ay iyana si wada jira u shaaciyeen inay uga fariisteen ciyaaraha qaramada oo aysan mar dambe u ciyaari doonin xulkooda Jarmalka saddexdan ciyaaryahan waxa ay kamid ahaayeen ciyaaryahanadii koobka adduunka 2014 kula guuleystay Germany waxa ay isna shaacinta ka fariisiga hore u sameeyay Toni Kroos oo isaga ciyaaraha oo dhanba sheegay inuu ka fariistay aad ayuu mahadsan yahay wariye Ciise Talyaani wararka ciyaaraha ina la socodsiinaya guud ahaan idaacaddii subaxnimona waa naga intaa ee dhageystayaal nabadgelyo Revolution.